waxaan ka hadlaynaa inta badan waa amniga Soomaaliya gudaha iyo dibaddaba maanta saameyn ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo dibadda jooga shanta qaaradood wadankooda saameyn ku leeyihiin waxa ay qorayaan iyo waxa ay sheegayaan intuba wadankooda ay wax dan u ah inay ahaadaan ayaa loo baahan yahay waxaa jira amniga marka laga hadlaayo ciidamada ammaanka u taagan habeen maalin hayeeshee ayagoo hawsha u taagan waxaa dhici karta in dad badan danahoodii ama sida wax u rabeen wax u dhici waayaan cabashooyin waa jiraan soo gaaraya in dadka qaarkood ay gaari waayeen goobihii ay rabeen ama in luqayaan ay ku qasaftay ama xataa dadka qaarkood oo xanuunsan jidadkii ay ka xirmeen waxa soo dhan waana soo gaarayaan laakiin dawladda inay dadka dhifto qorshaheedu ma aha in ammaanka la sugo waaye ciidamada ammaanka waxa mar kale kula tali aan amreynaa oo aan faraynaa in ay u turaan shacabkooda oo ay cid kasta oo dhiban oo ay arkaan oo ama daa ama xanuunsan ama safar ah oo ama aan xataa awood u lahayn socod dheer inay u idmaan jidadka ayagoo baaritaankooda iyo howlahooda wata haddana inay bulshada u dhimriyaan mar walbana waa loo sheegaa mar kalena waa ku celinaynaa waxa jidadka maraya waa hooyooyinkiina waaye waa habaryaradiin waa adeeryaashiin waa dadkiina waaye marka cid walba oo bulshada kamid ah oo ku dhibtoota iyadoo amniga la sugayo waxaa loo baahan yahay hadal macaan waxaa loo baahan yahay iyadoo ammaanka la sugayo haddana shacabka in loo turo taas waa ciidankan faraya qodobka labaad wuxuu yahay wax alla wixii dhibaato ka soo gaaray bulshada Soomaaliyeed oo ama dhimasho ama dhaawac waana ka tacsiinaa waana ka raali gelinaynaa marnana madaxda sare iyo wasaaradda amniga guud ahaan waxay isku ogyihiin in ammaankana la ilaaliyo haddana mar walbaba ammaanka iyadoo la ilaalinayna shacabka in loo turo taas ayaa la isku ogyahay marka fariinta anigu aan farayo waa taas waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo iyadoo warbaahintu ay furan tahay ama tan la iska arko ama tan la iska maqlo ama qoraalada tan qoran ay baraha bulshada ugu xoogan yihiin waxaan rabaa fariinteedu inay gaarto Soomaalida gudaha iyo dibadda oo ay ogaadaan wax kasta oo ay qorayaan in ay yihiin ay ka fikiraan 2 iyo 3 jeer ma wax dalka iyo dadka u danaha mase waa wax dalka iyo dadka waxyeelaya kan jooga Australia ama Mareykan jooga ama Yurub jooga oo haysta internet oo wax walba ku qori karo waa awood u leeyahay wax kasta ku qori karaa laakiin dalkan asaga iskale dadkan asaga laga rabaa inuu u turo bulshadiisa oo ka soo faafreeba wax kasta oo qoray warbaahinta gudaha joogtane ayadoo xur ah ayadoo aan marna laga hadlin xornimadooda ayadoo aan marna laga hadlin in bulshada iyo u dhaxeeyaan iyo maamulka dawladda ayaga u dhaxeeya xaq u leeyihiin inay soo gudbiyaan wax jira haddana ayadoo sidaas ayay waxa mas'uuliyad ka saaran tahay in ay waxa u gudbinayaan bulshada inay noqdaan wax bulshada la eg waxa ay bulshadu qaadi karto wax u qalma inay noqdaan bulshada Soomaaliyeedna waxaan ognahay inay u bislaatay inay kala sooci karto wixii sax ah iyo wixii qalad ah annagu cidna waxa la xira ama waxa la joojiyo malihin laakiin waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed qof kasta wax qoraya ama qof kasta hadlaya ama qof kasta oo barnaamij soo gudbinaya ayada kala sooci karta wixii sax ah iyo wixii qaldan taasna waxa waaye waa fariin kale oo gudbinayno mar labaad iyo mar saddexaadna fariintan gaaban waxaan ka bulshada Soomaaliyeed guud ahaan aan ka codsanayaa in ammaanku uu yahay waxa kaliya oo aan soo dhisanay oo aan haysano oo aan dawlad ku xirreyn oo mucaarad muxaafid ku xirreyn oo cid timid iyo cid tagaysa ku xirreyn oo kayd noo ah oo u soo rafaadnay oo u soo dhibtoonay oo inuu dib nooga noqdo aan diideyno wixii ku soo gaara ayadoo ammaanka la sugayo oo ciidamada ammaanka ay kala kulmaan inay dul qaataan wixii dhibaatana waa ka raali gelinaynaa wixii dib dhac waa ka tacsiinaynaa mar walbana ciidanka waxaan mar walba ka faraynaa inay bulshada u turaan ayagoo ammaanka ilaalinaya aad iyo aad u mahadsantihiin